asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer banaadir soo dhawaada. runtii kilibkan wixii aan ku arkay qaybo ka mid ah inaan tacliiqiyaan jeclay insha allah. Horta waxaan maqlayay odaygan asagoo eedeynayo guddoomiyihii hore ee doorashooyinka cumar dhigey. marka hadal yaab leh uu yidhi, waxaa kulahaa wuxuu noo keenay qof aan lala tartami karin. yacni wuxuu kursi siiyey qof aan lala tartami karin. yacni cumar dhigey beesha qalmashuu cumar dhigaa keena miya? cumar dhigaa kursi siiyey miya? kursi uu hibeeyey xildhibaanka beesha qalmashuu cumar dhigaa keena miya? runtii kaas meel ka dhac weyn waaye. hadalkaas meel ka dhac weyn waaye. yacni beeshaan inay noqoto maaha beel oo markii la rabo layska beegsanayo, beel maaragtay markii la rabo layska dul saaranya, beel maaragtay afka loo furtay oo aan maaragtay laga xishoonaynin, oo lala dhaqmaayo sida cid aan cid iska celin karin oo kale, sida cid baqays oo kaleenta. yacni hadda waxaan arkayay maaragtay asagoo dhahayo dadaa waxay dhaheen waa dagaalameynaa, dadaa maaragtay waxay dhaheen hubaan qaadanayna iyo wixii lamid ah. yacni intaas ka bacdi maxaa filaysaa in la dhaho? waa loo jeedaa colaadda aad ka dhex abuurayso, khaasatan adiga iyo wiilkaaga colaadda aad ka dhex abuuraysiin beelaha banaadiriga. waa loo jeedaa, waa iska cadda waxa beelaha qaarkiisa aad ku haysiin oo aa u keenteen wax la qaadan kara ma, ama waa idin laydi qabtaa ama idinka ay isqabatiin. haddii meesha wax laga fiican ay ka dhacanne cidda eedda ku leh idinkay noqonaysaa, cid kale hadhowdi ma la eedayo. arrinta runtii meeshaasay taagan tahay. waa in ammaan laydinka helaa, waa in aad dadka ammaan siisaan oo meel laydinka maraa. tan kale maaragtay horta ma jiro guddoomiye. haddii maaragtay aad tiraahid heer guddoomiye doorasho heer federaal ama heer gobol, guddoomiye maaragtay ku tasarufi kara kuraasta, ama kuraasta asaga gacanta ugu jirto sidoo raba ugu tasarufi karo, ciddoo rabana siinayo, ciddoo rabana u diidayo. guddoomiye heerkaas gaarsiisan horta maba jiro. ani hadda ma aqaano maaragtay waxa uu ku tilmaamayo cumar dhigey. cumar dhigey kuwa kursina ma siinin. cumar dhigey wuxuu maamulaya doorasho, adigana iyo beeshaadana waxaad ka codsateen in beesha qalmashuwa laydin lala tartansiiyo. taasaa socon weyse. laakiin beesha qalmashuwa kursigeeda ayakaa la timid, ayakaa la yimideen. cumar dhigey uma keenin. waxaad ku hadlaysid meel ka dhac weyn waay. odayoo malaynaya maaragtay inaa xataa taqaanid sida loo hadlaayo. tan kale wuxuu isku dayaya maaragtay si marmarsiyo leh dowladdan ammaana uu ku leeyahy, dowladdaa dadka kicilina uu ku leeyahy. dowladdan ma ahayno maalin hore markii wiilkaaga xilka ka qaaday tii maaragtay aada cambaareynaysa, tii aada weeraraysay soo maheen. madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo si gaara aad u weerartay, warbaahintaad maaragtay weerar la istaagtay. wiilkaaga kaaga horeeyey asagoo xil dowladdu u hayo oo wuxuu ku tilmaamay dowladda corruption inay tahay. corruptionka waxaad ka dhex celaysiin dowladda dhexdeed ku lahaa. marka hore muxuu xilkii iskaga casili waayey oo markaas wuxuu rabo uga hadli waay haddoo oo maaragtay runta uu sheegay. laakiin asagoo xil hayo ya, yacni markii xilka laga qaaday oo xilkiisa uu ku waayay, ninkii maaragtay dowladda soo fadhiistay meesha dowladda inuu weeraro oo madaxweynaha sida gaarkaa u weeraro, adiga mahan miya? waxaad leedahay videoyaalan soo saara aad leedahay. hadda videoyaashaada waa la hayaa. sida maaragtay dowladd aa uloo dirirtay aa u weerartane cid oo reer banaadir ka mid ah dowladda saas u weerartay maba jirto. haddii kale keen. marka saaxiibo horta marmarsiya iska daa. wuxuu sheeg kaloo layimid marmarsiyi kaloo la imaaday
wuxuu inoo ammaanaa guddiga doorashooyinka ee beelaha banaadirga. guddiga doorashooyinka beelaha banaadir sababtoo ammaanaysa waa la kasaa. guddoomiyaha koowaad ee guddiga doorashooyinka gabar aa sodoh u tahay way, wiilkaagaa qabo, booskaasaa leedin siiyey. ulajeedadana waxa waaye in xil leedin musuq maasuqo. ulajeedada intaas way. waxaad u ammaanaysid waa la garanayaa, laakiin sidee ku dhici kartaa xubin oo guddiga ka mid ah oo murashax wato? sidee ku dhici kartaa xubin guddiga ka mid ah oo maaragtay murashax ay xidid ay yihiin? sidee ku dhici kartaa? xubintaas waxaa waajib ah in xilka laga qaado. haddii odaygan ama wiilkiisa ay murashax noqdaan, xubintaas si fawran ah deg deg ah in maaragtay xilka laga qaado waajibka ah. haddii arrintaas ay bannaanka soo baxdo ay dhacdo, haddii wiilkan ama aabihiis lamadood mid ka mid ah loo diiwaan geliyo in maaragtay ay murashaxiin yihiin, waa in xilka laga qaadaa gabadhaas. weli xilka laga qaadaa cid kasta oo lamid ah sida gabadhaas oo kaleente oo murashax wata inuu maaragtay doorashooyinka keeno. sababtoo ah cadaaladda meesha ku baabaa. hadda cadaaladda asagoo ka hadlayo, cadaaladaa la raba uu leeyahy. cadaalad wax mi ah inaa isku haysatid murashax iyo guddi doorasho, xubin oo guddi doorasho iyo murashax inaa isku heshid, kaas cadaalad mia? cadaaladda macnaheedii yaa u fasiraysaa, yaa u sheegaysaa. marka xaqiiqatan waa iska caddahay waxa uu ka hadlayo. ma yaqaan, wuu iska hadlooyaa. dadka uu la hadlayna inuu yacni ka maxaa la yidhahdaa ka smartaysan yahay umaleeha, inuu wax ka fahansan yahay, inuu wax ka ogyahay umaleeha. saaxiibow, murashax iyo maxaa la xubin guddi doorasho iskuma haysan kartid, iskuma la heli kartid. tii doorasho la dhahay haddii kale meeshaasi ku baaba'day. wax soconaya ma ahan. mar haddii ay dhacdo inaad murashaxnimo usoo istaagtid ama wiilkaaga uu soo istaago, gabadhaasna maaragtay guddigaas ay ku jirto, gabadhaas waa in xilka laga qaadaa. taas way. beesha leedin tatarsiinayo yaa way. beesha maa ka dhalateen? see leedin tatarsiinaya idinkii beeshaas? dee furnaanta la sheegayo si u fasiraysan idinka. maxaa meesha daahfurnaan keenay? kuraasta waxay u daafuran tahay isla beesha u daafuran tahay. beesha dad badanay leedahay, kumanaan qof ay leedahay. qofkii rabaan aysa soo sharxi karaa. daahfurnaanta intaas way. taas waa macnihiis. laakiin kursi maaragtay meel cidlaa iska yaalo oo beel kasto hadda waxaa keenteen, waxaa leedihiin fiiri kursiga 266 waa waxaa idinka a keenteen. waxaa la sheegayay gobol maaragtay gobol waxaa la sheegayay inay dad ay kasoo maqleen kursigaas inuu maaragtay kursi la isku sharxi karaya. daahfurnaanta waxaa la sheegayay maqleen, waxay dhaheen anaga 266 maxaa la dhaha kursiga sumadiisa tahay 266 aan u taagannahay. waxaas dhan yaa keenay. dadkaas yaa nugu soo foofiyey. ma aha miya adigii wiilkaaga? markaas waxaa leedihiin dada xanaaqsan, dadaa aa maaragtay cagajugleynaya, dadaa aasaan ay aad leedihiin. ma hilmaamtay adigii wiilkaaga in maaragtay doorashooyinka aad mas-uul ka tihiin, cagajugleynta aad mas-uul aad ka tihiin, iskadeedka aad mas-uul aad ka tihiin, maaragtay cabsigelinta. oday maaragtay odayaasha ka mid ah, weli oday waayeel ah, saa u argagixiseen. maalintii maaragtay uu markii guddigan la ansixiyey, eedeymuhu soo jeeday waxaa ka mid ahaa in guddigan si loo ansixiyey khalad ay tahay, sababtoo ah si cadaalad ah dadka looguma qeybinin, dadka looguma ogolaanin. yacni 12 xubno in maaragtay beelaha
bandhigay ahayd maaragtay qofkii xubinka heli karo maaragtay uu markaas uu ku darsado, laakiin si cadaalad looma qeybin. saasuu yidhi, ma fahamti? hadal la dhihi karo waay, waa eedeen lasoo gudbin karo waay. walaa guddigaa loo soo gudbin karaa, guddiga doorashooyinka heer federaal loo soo gudbin karaa, waxaa loo soo gudbin karaa ra-iisul wasaaraha loo soo gudbin karaa, madaxweynaha loo soo gudbin karaa. eedeyntana waxyaalaha wax lagu saxay ka mid tahay. markii eedeyn aa maqashid, macnaha waxa waaye khaladaa meesha jira, hala saxo way. markaas weerar dowlad miya, kaas weerar maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta dowladda miya, hay-adaha dowladda miya, xukuumadda, weerar oo xukuumadda ku socda miya? se waxa aa u fasuraysiin? odaygii waa handadeen, waa cabsi geliseen, weli waxaa ku khasabteen hadalkaas inuu ka noqdo oo maxaa la yidhahdaa uu warbaahinta mar labaad soo istaago. ficlanna waa dhacday in maaragtay uu soo istaago warbaahinta oo hadalkii uu ka noqdo. idinkaa ku khasbay, idinkaa ku sandulleyay, ma fahamti? odayaashan hadda meesha fadhiyo ku qaaraan faraxsanayn, dadkii waa la cabsi geliyey. waxaas dhan yaa ka dambeeya, waxaas yaa caanku ah oo kusoo caan baxay oo looga bartay banaadiriga dhexdood oo aan ahayn adig iyo wiilkaaga. marka maxaa la yidhaahdaa shanta qabiil oo haysato kuraasta oo doorashooyinka isku diyaarinayso, shantaas qabiil ha gudbiyaan cabasho, ha gudbiyaan, hana u gudbiyaan cabashadood, ama ha u diraan guddiga xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka, ha u gudbiyaan. yacni qodobadii hadda aan soo sheegay ha tilmaamaan, ha ka hadlaan maaragtay inuu jiro murashax oona maaragtay xubin ku leh guddiga doorashooyinka, ama xubin guddi doorasho oo murashax wato inuu jiro, ha loo gudbiyo guddiga xalinta khilaafaadka. arrintaas aad iyo aaday muhiim u tahay. ama murashaxiintaasaa la joojinaa, ama maxaa la yidhaahdaa gabadhan iyo wixii lamid ahbe ayakaa xilka laga qaadaa, sababtoo wax jiri kara ma ah, ma fahamte? haddii kale waxa waaye maxaa la yidhaahdaa waxaa fargelin lagu sameynaa murashaxiintiina, oday dhaqankiina, ergooyinkiina iyo qoondada haweenka waxaa lagu sameynaa, maxaa la yidhahdaa fargelin lagu sameynaa. intaasna haddii ay dhacdo ka kac waa wax kasto. marka horaanba waxaan ka cawaadayni yacni guddi oo xubnihiisa ay ka mid yihiin dad aqoon iyo karti ku fil aan lahayn, aan marka hore aan ka cawaadayni, aan ka sheeganayn. dadkaasoo kaleentana waxaa meelaha loo keensana waa laga faa'iidaysan karaa. magacood aa la rabaa iyo gacantooda aa la rabaa in wax lagu musuqmaasuqo, in wax lagu halaagaa la rabaa, saasoo loo isticmaala. ma fahanteen? marka waxa waaye codsi hala gudbiyo oo ku socdo mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo kuwa amnigaba, in maaragtay doorashooyinkan ay yihiin, codsi ha loo gudbiyo inay doorashooyinkan ay noqdaan doorashooyin lagu kalsoon yahay, oonaan laga ilaaliyey, laga dhowray, laga qabtay khaswadayaasha rabaan doorashooyinka inay carqaladeey ayna afduubaan. khaswadayaasha rabo inay doorashooyinka carqaladeeyaan afduubaanna, codsigaas hala gudbiyo. codsigaas muhiim wey, cabashooyinkaas hala gudbiyo. cabashooyinkaas aad iyo aaday muhiim ay yihiin. haddii kale waxa waaye beelaha banaadiriga runtaa fiican, odaygan iyo wiilkiisa waxa ay wadaan haddii hadhowdii wax laga fiicanya uu dhaco, eediisa cid kale ma iska laha, ayakaa ka mas-uul ah. haddii kale waxa waaye dowladda, meel dowlad ka jirto waxaanoo kale, waxa ayka ay wadaan oo kale ma ka soconaya, mana dhici karto. waa in sida ugu dhaqsaha badan, si degdeg ah faragelin lagu sameeyaa arrinta ay wadaan odaygan iyo wiilkiisa. runtaan idiin sheegaa,
murashaxa hadda ana sidii soo gaartay murashaxa wiilka xataa ma murashaxa asaga wa sababta waxa waye wuxuu leeyahay wiilkiisu wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro wuxuu leeyahay meesha ma lagaa rabo dowladdan kuma rabto ma fahanti macquulna waay ma fahanti kuwa hadda dowlad ku jiro oo maaragtay baarlamaanka joogo oo xasaanada haysto aqatyaan laga taagan yahay ninkan oo kale haddii xasaan laysku siiyo meesha laysku keeno ya sidee wax noqon doonaan xasaanad dhedhel ma ah ma fahanti marka anaga waa khasaaraynaa nin yahow meel naga fadhiis anaa gelaa murashaxa lagu sheegay odaygan waay haddii aadan ogeynina hadda iyo wixii ka dambeeya ogaada odaygan murashaxa lagu sheegay asaga laftigiisa waaye xasaanaduu raadinoyaa kursi baarlamaan uu raadinoyaa murashax lagu sheegay asaga waaye intaasaa idin dhihi laha wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum